waxaa tababar ku saabsan habka daminta dabka ama dabdamiska lagu qabtay maanta maamulka magaalada Wajaale. tababarkan ayaa loo qabtay ciidanka dabdamiska ee maamulka magaalada Wajaale oo ka koobnaa 15 xubnood oo ay wehelinayeen saddexda darawal ee gawaadhida dabdamiska. waxaa tababarkan bixinayay Cabdi Jaamac Maxille oo ah macalinka dabdamiska ee maamulka magaalada Wajaale oo isagu ah macallin khibrad dheer iyo aqoon durugsan u leh habka daminta dabka iyo ka hortagiska dabka. macalinkan Cabdi Jaamac Maxille ayaa waxbarashadiisa ku soo qaatay dalka dibadiisa isagoo leh khibrad dhinaca dabdamiska oo 38 sano gaadhaysa. waxaa tababarkan ka soo qayb galay maayarada maamul magaalooyinka deegaanka iyo xubno ka socday heer deegaan oo iyaguna u joogay magaalada Wajaale aqoon isweydaarsi dhinaca horumarka iyo arrimaha asaasiga. waxaa ugu horeyn furay tababarka wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha mudane Cabdullaahi Aadan. maamul magaalada Wajaale ee ku soo dadaalay inay qabtaan tababar u qabtaan xubno 15 qof dhan oo waayahanba ku hawlanaa inay ku tababartaan qaabka haddii ay dhibaato ka timaado dhinaca dabka haddii magaalada ay soo gaadho maadaama magaalada ay tahay magaalo ganacsi dukaamo badan iyo bakhaaro badan ay ku yaalaan. sidoo kale magaaladu waxay xad leedahay Soomaaliland oo labada daanba waxa ku yaala bakhaaro aad u waaweyn iyo dukaamo aad u waaweyn ba ku yaala. marka dhibaatadani haddii ay soo food saartay magaaladani si ay u badbaadiyaan ayaa wuxuu maamulka magaalada Wajaale sameeyay 15 dhalinyaro ah ayuu tababaray. marka tababarkanina hadda maadaama uu dhamaaday annaka xafiis ahaan iyo lay magaalooyinka kaleba waxaan rabnaa inaan khibradani maamulka magaalada Wajaale aan ka qaadano kadibna aan magaalooyinka kale si aan u gaarsiin lahayn. sidoo kale ka hadlay maayarka maamulka magaalada Goday mudane Axmed Sheekh Maxamuud. waxaan hambalyeynaya runtii maamulka magaalada Wajaale oo runtii hormuud noogu noqday ka magaalooyin ahaan baahidan oo ahayd baahi jirta magaalooyinka oo dhan ka jirta isagu maxay isu xilqaamay oo sameeyay teamkan maanta aan maaragtay hor joogno. runtii waa fikir u baahan in magaalooyinka kalena aan ku dayano haddaan magaalooyinka kale oo tiimanka noocan oo kale inta iyadoo qalabkii iyo maxay ahayd missionary-ga yaalaan haddana teamka in la xoojiyo sidan oo kale. waxaan codsan lahayn xafiiska maamulka muxuu ahaa wasaaradda horumarinta magaalooyinka in tababarahan oo kale aysan sii deynin oo maxay ahayd si magaalooyinka kale looga faa'iideeyo in intii hal mar la isku soo ururiyo meeshii kolba magaalo u tagi lahaa intii la isku soo ururiyo iyagu responsibility-ga ay qaataan oo hal mar magaalooyinka waaweyn oo dhan ay u tababaraan lama kala gedisan ay khusaysan. waxaan codsan lahayn in arrintan la dhiirigeliyo si berito ay sabab ugu noqoto magaalooyin kale ku dhiiradaan in hal abuur noocan oo kale ay sameeyaan. aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku mahadcelinaynaa. ugu dambeynna waxaa ka warbixiyay faa'iidada tababarkan iyo sida ay u soo agaasimeen maareeyaha maamulka magaalada Wajaale mudane Axmed Naasir Suldaan Cabdiraxmaan. wadarkiisii waxaan maanta bilownay ama aasaasnay oon tababarna u bilownay ciidanka dabdamiska maamulka magaalada Wajaale. hawshaasi waxay nala martay kulli culays fara badan waqti fara badan bay nagu qaadatay. waan weynid cid dabdamiska tababari karta oo deegaan ahaan joogto oo aan daranno. alxamdulillah markii dambe waxaan helay qurba joogtii u dhalatay deegaanka Wajaale nin kamida oo tababaro dabdamiska ahaa dalka Imaaraadka Carabta muddo 39 sano petroleum u shaqaynayay. markii uu fasaxay dalka ku yimid uu nala wadaagay waxaan ogaanay inuu tababaraha Imaaraadka oo dhan tababaraya. waxaan ka codsanay inuu noo tababaro xubnaha dabdamiska si tabaruca ayuu naga ogolaaday inuu noogu tababaro qalabkii iyo dharkii iyo wixii loo baahnaana uu nala fududeeyay sidii aan u heli lahayn. maasha Allah tababarka uu bilaabmay meel fiican bay maraysaa. caqabadaha ugu adag ee hortaaganina waxa ugu adag oo maanta aan wajahaynaa hadda wixii soo socda waxa weeyaan mushaharka shaqaalaha aan tababarnay sidii mushaar loogu heli lahaa. mushaharkoodaasi xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inay naga caawiso inay na garab istaagto inaanan u mooraal jabin. haddii wax kasta oo dadaal oo aad samayso oo marka dambe haddana fashilmo mooraal jab baa yimaada.
xubnihii ka soo qayb galay tababarkan ee maayarada maamul magaalooyinka ayaa sheegay in ay tababarkan la dhaceen isla marhaantaana la samayn doono tababaro dhinaca dabdamiska oo noocan oo kala si looga hortago masiibada dabka iyo sidii loo heli lahaa cudud ciidan oo u tababaran dhinaca dabdamiska kana hortagta dhibaatooyinka dabka.